Ku soo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeennii ciyaaraha. Halkaad nagala socotaan waa Cawaale Official Channel. Guusii soo laabashada lahayd ee gaadhay kooxda Red Devils. Kooxda Chelsea oo guul weyn ka gaadhay kooxda Malmo. 2 gool oo u dhaliyay Lorenzen ayaa guul muhiim ah ku hogaamiyay kooxda Bayern Munich. Kooxda Barcelona oo guushii ugu horeysay ee Champions League xilli ciyaareedkan gaadhay. Tababare Thomas Tuchel oo ka hadlay dhaawaca soo gaadhay ciyaartoydiisa. Barnaamijkan oo faahfaahsan, daawasho wacan saaxiibayaal. Kooxda kubadda cagta Man United ayaa guul soo laabasho leh ka gaadhay kooxda Atlanta oo 2 gool kala hormartay, laakiin ayaa ugu bedelay 3 gool. Atlanta ayaa ka naxsatay Manchester United qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana ay si sahlan shabaqooda ugu hubsadeen 2 gool oo lagu canaantay Harry Maguire. Hase yeeshee, qaybtii labaad ayay Red Devils hurdada ka toostay oo ay 3 gool shabaqa Atlanta ku hubsatay. CR7 ayaa noqday halyeygii guusha ugu hogaamiyay kooxda Man United ee dhaliyay goolkii 3aad ee ciyaarta, si la mid ah sidii Villarreal uu guusha ugu hogaamiyay kooxda Man United. Garoonka Old Trafford ayaa isla kacay farxad iyo damaashaad, waxaana sidii ay koob guuleysteen jamaahiirta ay u dabaaldegayeen mid walba halkii uu taagnaa. Ronaldo ayaa isna farxadiisa u cararay dhinaca koonaha ee dhulkana isku tuuray, waxaana farxad isku dul daadiyay ciyaaryahanada kooxda Man United. Cristiano Ronaldo oo ah halyeyga Champions League oo loo yaqaano lama joojiye, macnihiisu sababta loo joojiyo loo yidhi waxa weeyaan tartanka Champions League waa tartanka ugu jecel yahay. Waa ciyaaryahan wax kasta oo ku saabsan Champions League magaciisa ayuu ku qoray. Ronaldo minute Champions League kooxdu u ciyaarayo ma gool la'aan karto ilaa minadka ugu dambeeya, waana sababta loo yaqaano Unstoppable Cristiano Ronaldo. Chelsea ayaa guul weyn oo 4-0 ka gaadhay kooxda reer Sweden ee Malmo ay ku garaacday Stamford Bridge. Kulan ay 2 ciyaartoy kaga dhaawacmeen Blues oo ay ku soo galeen kaalinta labaad ee Group H. Blues ayaa guul darro ka soo gaadhay ciyaartii Juventus oo ay kaga badisay kooxda difaacanaysay koobka Champions League xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay, isla markaana ayaanay hadafkeedii joojin karaynin dhaawacyada. 4 gool waxaa kala dhaliyay Chicharito oo 2 rikoodho dhaliyay. Christensen iyo Kai Havertz ayaa iyaguna 2 gool ee kale u dhaliyay kooxda Blues. 2 gool u dhaliyay Lorenzen oo mid kale ku daray Lewandowski, iyo gool kale iska dhaliyeen ayaa Benfica ayaa Bayern Munich siiyay guul weyn oo 4-0 ay ka gaadhay kooxda reer Portuguese ee Benfica. Arrinta la yaabka leh waxay ahayd in Bayern Munich ay goolasheeda ku dhalisay 14 daqiiqo oo gudahood, oo ah intii u dhaxaysay daqiiqadii 70aad ilaa daqiiqadii 84aad ayay 4 goolba yimaadeen. Waana arrin mucjiso leh oo cajiib ah. Kooxda Bayern Munich waa kooxda goolasha ugu badan dhalisa kooxaha ka hor yimaada ka dhalisay Champions League, min koox yar ilaa iyo koox weyn. Kooxda Juventus ayaa iyaduna sidoo kale 1-0 kaga badisay kooxda Zenit, waana hogaamiyaasha Group H ee gruupka. Chelsea iyo Malmo ay kula jirto ayay hogaaminayaan kooxda kooxda Juventus. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa heshay guusheedii ugu horeysay ee tartanka Champions League xilli ciyaareedkan, iyadoo 1-0 kaga badisay kooxda reer Ukraine ee Dynamo Kiev. Goolka madiga ah ee qaybtii hore waxa u dhaliyay daafaceeda Gerard Piqué. Barcelona ayaa ku filnaatay inay hesho guul dib ugu soo celisay niyadeedii iyo rajadii ay sii dhimaneysay ay ka qabtay Champions League.
kana badbaaday taariikh madow oo loo diiwaangelin karay. Barcelona ayaa guul darooyinkii kala kulantay saddexdii ciyaarood ugu dambeeyay ee ku ciyaartay garoonkeeda Camp Nou. Ciyaarta ayay ahayd habeen geeri ama guuldarro oo laga badiyay halis weyn gelin karayay mustaqbalkeeda. Gerard Piqué waa daafaca rikoodhkii wuxuu dhaafay Roberto Carlos daafaca goolasha ugu badan ka dhaliyay tartanka Champions League. Sidoo kale Gerard Piqué markuu kooxda Barcelona gool u dhaliyay Champions League weli lagama badin 15 ciyaarood hore oo gool dhaliyay kooxda Barcelona lagama badin. Ciyaartana waxay ciyaartii 16aad oo shabakada Champions League u baaqdo, taasoo ka dhigan inuu hadda yahay daafaca kaliya ugu goolasha badan Champions League. Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa ka warbixiyay dhaawacyada xalay soo gaadhay labadiisa weeraryahan ee Timo Werner iyo Romelu Lukaku oo laga saaray qaybtii hore ee ciyaarta. Thomas Tuchel oo warbaahinta la hadlayay ayaa markii dhamaatay ciyaarta yidhi, Lukaku waxaa leexday kuraanta, Timo Wernerna muruqa ayuu ka dhaawacmay. Sidaa waxaa sheegay Thomas Tuchel. Barnaamijkeennii ciyaaruhu intaas ayuu ka eegaya. Asxaabta nagu cusub fadlan subscribe noo saara. Asxaabta hore nala joogtana like iyo share noogu dara. Mahadsanideen.